Ra'iisul Wasaare Roble oo safarkiisa ugu horeeyay ugu ambabaxaya dalka ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa la filayaa in maanta oo Axad uu dibadda ugu baxo safarkiisa ugu horeeyay tan iyo markii xilkaasi loo magacaabay. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa sida aan xogta ku helnay ka qayb gali doona tacsi magaalada Kuwait ee dalka Kuwait loogu qabanayo amiirkii geeriyooday ee dalkaasi Sheikh Sabah Al Ahmed As-Sabah. Sheikh Sabah ayaa geeriyooday 29 September muddo uu xanuunsanaa waxaana dalkaasi lagu aasay isla maalinkii xigay ee 30 September waxa uuna ahaa 91 sano jir. Si kastaba Sheikh Sabah ayaa la filayaa in Kuwait loogu qabto munaasabad tacsi baroordiiq iyo duco ah oo ay ka qayb gali doonaan inta badan hogaamiyaasha Carabta iyo Islaamka. ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in safarkan uu markii hore qorshaha ahaa in uu ka qayb galo madaxweyne Farmaajo hase yeeshee taa beddelkeed uu shalay aaday dalka Suudaan halkaas uu kaga qayb gali doono munaasabad ay heshiis ku kala saxiixanayaan dowladda iyo mucaaradka dalkaasi. Safarka Ra'iisul Wasaare Roble ee Kuwait ayaa imaanaya iyada oo weli uusan soo dhisin xukuumadda cusub taas oo la filayo inuu ku dhawaaqo marka uu dalka ku soo laabto toddobaadkan.